بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم markuu horeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad iska leh marka xiga maamulka iskuulka salaam sidoo kale waxaan mahad gaar u leeyahay marti sharafta kala duwan ee halkaan fadhisa madaxda shirkadda hormuud ee markaas hoolka ku sugan ardayda qalin jibinaysa waalidiinta kala duwan ee ardaydooda farxada la wadaagaysa guud ahaan qof kasto oo markaas mansab ku leh in xafladan quruxda badan leh ay dhaqaaqdo si gooniya kaamiramanada quruxda badan leh ee laga sugayo production fiican ay ka soo saaraan xafladan waxa waaye sanadkiiba hal mar dhacda ayaan ka rajeynaa insha Allah waxaan u hambaleynayaa dufcada 8aad ee iskuulka salaam aniga waxaan ahay maxamed daahir agaasimaha xafiiska suuqgeynta ee jaamacadda sharaf ay tahay saakay inaan afgooyo joogo sidoo kale sharaf ay tahay iskuul aan madax wadaagnahay inaan xafladiisa joogo sidoo kale maamul saad xafladiisa naga cusubina sharaf ay noo tahay si guud si gaar ah jaamacadda salaam iskuulkana baha ay la tahay sanad walba xafladda iskuulka qalin jibintiisana waa ka soo qayb gashaa inaan ka soo qayb galnaa markaas sharaf weyn ay noo tahay si guud jaamacadda muqdisho xarumaheedu ku yaalaan degmada hodan KBB iyo sidoo kale cabdiqaasim ilaa 29 takhasus oo ardayda ay ka qalin jibiyeen ayaa markaas qayb ka ah sidoo kale waxa hoolkan ula sugan injineer Furqaan oo jaamacadda ka dhameysay culumta beeraha sidoo kale ahna xafiiska diiwaanka ama xafiiska admission qayb ka ah sidoo kale deegaanka kulliyadda beeraha markaas soo martay ayada nafsigeeda kalimadeeda waa si doona maadaama heeraf goyn ay tahay jaamacaddan ay ka qalin jibisay iskuulkana kulliga ay yihiin si guud waxaan idin rajeynaa insha Allah ta'ala natiijo qurux badan in imtixaankan natiijada soo socoto in Ilaahay si markaas aad ku faraxdaan Ilaahay idin keeno waxaan rajeynaa insha Allah ta'ala jaamacadda salaamna inaad ku soo biiri doontaan maadaama bahawadaga tihiin gacmo furan idin ku soo dhaweynaa guud ahaan ardayda qalin jibinaya waxaan rajeynayaa maalinta xafladda aan natiijo soo baxdana waxa filayseen wax ka qurux badan inay soo baxaan